بسم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. waxaa la joogaa Suley Cabdi oo kamid ah gabdhaheena aqoon-yahaniinta ah ee u tartamaya kursiga gabdhaha ee gobolka Wajeer. marka hore soo dhawow. way ma santahay su'aalo dhowr ah ku weydiinaa aad marka ayada maadaama waqtigu kugu yar yahay waxaan kaaga mahad celinayaa maadaama waqtigan quruxda badan mas'aado marka ayada waqtigu cayil kugu yahay kursigan aad maanta u tartamaysa ee gabdhaha women rep ka loo yaqaano markii kugu horeysa u tartantaa mise waxa ka horeysa aniga ma jiro anigu alxamdulillah waa markii ugu horeysa waxaan haminaayay niyadu way iga jirtay waqti kale laakiin Soomaali istaagay banaanka uma soo shaaqeyn laakiin gurigeyda iyo ehelkeyda iyo macsuudkeyda u sheegay laakiin xoolaha waa liiga yahay waxa ilaahay ballan wiirkaas safar dambaad ilaahay dumiye qaadin marka safartana waxa ay tii ugu horeysa soo shaaqeyn banaanka bulshadu u sheegay waya maxaa kugu dhaliyay marka kursigan inaad u tartanto gobolka Wajeer sadaba horta aniga qof oo Wajeer ka soo shaqeeyay waqti 20 iyo hadda dhowr sanaan ahay qof khibrad u lahaanahay arrimaha haweenka hadda kula hadlahay waxaan soo bilaahay masters program oo agenda development horumarka ma aragtay rag iyo bilcaanka iyo wiilasha iyo gabdhaha dadka ma aragtay oo dadka danta yar dadka tawaaleysan arrimahooda taas u soo shaqeyn jiray waqti badan waxaan u soo shaqeeyay hay'adaha ma aragtay samafalka bini'aadamka Wajeer wali ka saaya waxaan u soo shaqeeyay koodi hay'ad la dhahaa Aldef oo Soomaali gelinaysa markaan waxaan ka shaqeynay dadka abaaraha saameeyeen iyo dadka ma aragtay danyarta ah maamooyinkan soo tababaray xagga waxaan ku soo tababaray sida ayuu loo aruuriyo iskaashata ma kufto maamayaal badan oo Wajeer oo ma aragtay programka mashruuca soo hagaaji hadda ilaa hadda faa'iido badan ka geey ilmihi waagaasan program hooyooyinkooda la bilaabay jaamacadaha dhaween dad weyn waaye ilaa waqtigaas oo 2001 and up to ilaa waqtiga 2004 programkaas ku jiray marka dambana waqti yar oo xoogo waxaan ku noqday waxaan u shaqeeyay wasaaradda caafimaadka haddana wasaaradda caafimaadka waxay la shaqeeyay waan iskaga tagay waxaan aaday haddana hay'ad Soomaaliya gobolka Gada ilaa Waamo waxaan u shaqeeyay haddana dad tawaareysan oo abaar ay saameysay oo colaadna ay saameysay waxaan u qaban jiray program la cash relief anagoo weli la tababaraysa hay'adda ما أردت إنما الجنيس هي أكسفام ساوث سومالي program أنك سو شقي مركز تمر الحمد لله وحنجلي هي ده عافية تونب وكشقي ليس أهمها ما أردت HIV AIDS قد كي سامين عذر HIV وحنا هي program وهرين أنا كورنيتا كهاي ولا قبل وجر ضد كبيرة سبحان الله يجري ضد ويجريه ما أردت ولا سحري ولا تكوري مدة تكور قف عذر كله لما مشي كيسن جرين حتى مركون انت قف دقة ولا قفار جرين لكن أنا وحاسوب بي program هذا ضد عذر كقامة هنا برنامج ماذا أنا وحنوصنا هاي حنون كيدر عاف مالا كوبا إلا يكدهان من program كذا كشغي أدم هاي دي هدولي ويجرتها وحول organization of persons living with HIV dadka Wajeer way ka saayeen ka bacdina markay programkaas dhamaaday marka waxaan dana jaamacadan ku noqday waan soo dhameeyay hadda waxaan ku shaqeynaa ugu dambeyn inta u dambeysaan gaarin waxaan u shaqeeyay program hay'adda dhah Masiko waxaan ka bilaabay program oo gender program oo maamooyinka iyo gabdhaha la shaqeynaa tababarka gabdhaha sidii horumari lahaayeen gabdhaha uga qayb qaadan codkooda lagu maqli lahaay dhinaca waxbarashada dhinaca gabdhaha ma aragtay ay sida lagu dooran lahaay women in leadership women in education even women in governance taa gabdhaha sida ugu ma aragtay ugu qayb qaadan lahaay arrimaha hoose oo bulshada ha ahaat hataa gurubyaha kuwa caafimaadka kuwa biyaha hataa tuulooyinka jooga maamulka biyaha hataa say gabdho ugu jiraan taasaan kasoo shaqeey waxaan form garay group la dhahaa gender technical working group oo hataa Wajeer ka howlgala oo u hagaajinay gabdhaha la soo xoogay ama la soo jir dilay ama la soo xumay sida loogu ma aragtay loogu hortagi lahaay oo ku dhibka ay gaaraan lagu caabin lahaay hadda programkaas wali waa socdaa ugu dambeyn waxaan u shaqeeyay hay'ad la dhahaa DAI anigoo ma aragtay ka shaqeynaya howlaha ma aragtay ka hortaga arrimaha argagixisada iyo ma aragtay waxa loo aqaan afka qalaad countering violence extremism waxaan ka shaqeynayay countiga Wajeer iyo countiga Nairobi ugu dambeyn waxaan ku guuleystay inaan ahay program ugu horeeyay oo ka suuba national oo Wajeer iyo counties badan oo Kenya ah ka hagaaji
waxa la dhahaa county action plan on counter virus extremism anagoo la shaqeynay laamaha amniga wadanka Kenya sida looga hortagi lahaa ilmaha dhalinyarada iyo haweenka maaragtay duubsanaya oo galaya arrimaha al-shabaab iyo arrimaha maaragtay ilmaha maskaxda laga bedelayo oo la bedelayo oo la wareerinaya oo maaragtay faralka xun ku teecay marka anigoo saas ah hadda ugu dambeyn waxaan lahay private consultant on gender development aniga waxaan u soo istaagay ma aha ani dantayda kale inaan bulshadayda wax la qabto xusuusad gabdhaha iyo hooyooyinka iyo dadka bulshada oo tabaaleysan horumarkooda in lacagahooda ngaaf iyo wax ma dawladda ugu talagashay si wanaagsan oo maamul wanaag ah looga hagaajiyo oo horumarinta wadanka Wajeer iyo wadajir Wajeer anaga kaliya ma degnan qabiil dad badan nala degan minority nala degan oo tribe nala degan marka ani kulli waa u daneynaa reer Wajeer aan aniga qabiilku ma socdo qabiilku ma saleysni of course qof kasta laanu ka soo jeedaan qabiilku waa in la isku garto dhahay ilaahay qabiilka lama diidana laakiin qabiilaysiga aad sida xun loo isticmaalayaa xun marka ani waxaan rajanahay dadka bulshada reer Wajeer idinkoo ka seeyo waxtarkayda iyo waxqabadkayda inaad qibradayda iyo waxgaradkayda aad wax igu siiseen iyo dadnimadayda iyo ma aragtay sidaan bulshada ula noolahay iyo waxyaalahan ii soo qabtay assalaamu calaykum waraxmatullaahi waa maasan tahay su'aalahan ku weydiin lahaa dhammaan waxaad martay jawaabahooda marka dib ku weydiin maayo ugu dambeyn waxaan ku weydiinayaa kursigan waxaad ku tartamaysaan gabdho dhowr ah oo walaalaha ah maanta halkan muhiimad ugu weyn oo la imaado waxay ahayd in marka ayada ah barnaamijkeeda barnaamijkiisa marka ayada laga hadlo gabdhahan marka ayada ah kula tartamayo iyo adigaba waxaa jiro gabdho aqoon-yahaniin ah oo marka ayada ah ay isku xilqaamay inay idinka soo bixiyaan hal gabadh natiijada ka soo baxda adiga seed u qanaysaa walaal dadka ehel walaal dadku waxay isa keenaan anaga danta Wajeer way isku keenkeentay dadna walaalnimo isku keenkeentay sida la sheegay dadka ehel iyo qaraabo marka yihiin waa inay isla daneystaan wax isla qabsadaan marka aniga walaalnimo iyo wadajir iyo isla wax qabsasho isku keenkeentay halkan dadka meesha joogana kulli oo maanta komitiyada ku jira waa dad aqoon u leeyahay waa dad ehel ah waa dad qaraabo ah kulli Soomaaliyan nahay dhaqana jiri laakiin ana waxaan rabaa anigoo taxgelinaya ayaga oo wali xurmeynahay ayaga oo qofnimadooda iyo dadnimadooda og iyo wax qabadkooda waxaan jeclaan lahay markay dadka soo kala saarayaan qabiil iyo tana reer hebel iyo tana reer hebel inay dhixin oo ay nagu fiiriyaan qofka wax qabadkiisa qofnimada iyo wuxuu soo qabtay intuu soo shaqeeyay inuu cod kar yahay bulshadana wuxuu qaban kara reer Wajeer wuxuu qaban kara muslimku wuxuu qaban kara ummadda iyo ehelka iyo jiiraanka nala degan wuxuu qaban kara intaasaan ku soo koobay ma sha Allah waasan tahay anagana waxaan kugu duceynaynaa ilaahay inuu kuu fududeeyo oo kuu sahlo isla markaa aad noqoto gabar wax badan ka bedesha mustaqbalka gabdhaha kale ee ku nool Wajeer waxaan mahadcelinayaa farxadana insha Allah